badan oo goor ayaa ka hadlay gabaya ka timiyay waxa aynu nahay waa inaynu ahaanaa haddaynu tiirkii dhisay federaalka nahay waa inaynu tiirkii ahaanaa haddaynu aasaaskii hooyada nahay waa inaynu ahaanaa taa macnaheedu ma aha inaynu ama la dagaalo ama ka soo horjeesano ama la isqabsado waxyaalaha jira hadda anu waxaan u iilaa oo la isku haysto laba wax mid waxa weeyaan waxaan u iilaa dastuurkii oo aan dhammaystirayn oo weli la isku xukumo tan labaadna waxaan u iilaa dana shakhsiyadeed cid kasta ha wadatay labadaa waxbaa waxay u yihiin saldhig isqabqabsiga ka jira dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah midnimo soomaaliyeed baan rabnaa qaran soomaaliyeed baan rabnaa horumar soomaaliyeed baan rabnaa oo federaal ah haddii ilahay oo federaal ah haddii aan noqdo haddii aan ku guulaysto musharaxnimadayda kursiga puntland ugu safareeyay waxyaalaha mustaqbalka iyo masiirka puntland waxa weeyaan waa inay noqdaa waxa ugu wanaagsan ee loo qabtay bulshada puntland waa inay puntland heshaa cadaalad waa inay heshaa amni waa inay heshaa dhaqaale waa inay heshaa ammaano wixii ay iyadu lahayd loo ammaanayo oo loo ilaaliyo waxa weeyaan waxaan ka talinaynaa haddii la fiirmo shacab midaysan dowlad shacab midaysan leh la tashata hufan ammaano oo dadku ay la shaqeeyaan haddaan shicibku dowladda la shaqeeyo waa inaan idinku shaqaysin iyo banaana ka sheekeeyo horumar ma gaarayo amnigeena iyo midnimadeena iyo horumarkeena waxay ku daran yihiin inaan wada shaqeyno waxaan ballan qaadayaa caawatiin haddii laayne inaan ammaanada sugo inaan amniga sugo inaan sharafta iyo cirdiga dadka reer puntland iyo diinta iyo dastuurka puntland ilaaliyo ilaahay idinkana waxaan idinka mahadnaqayaa ammaanta ay ammaantiyoona aan wada lahayn bini aadan baan ahay khalad badan baan leeyahay laakiin inta taqaani intay filisooda waxay ku maamulaa haddii lagu sheegona waa la sheegaa haddii lagu sheegona waa la sheegaa anigu waxba iska sheegi maayo intaasaan kusoo gabagabanaya barnaamijkayga caawa aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.